shacabka ku dhaqan magaalada Joore caasimadda Hirshabeelle waxay dhagta kor ugu hayaan shirka dhawaan la filayo inuu ka furmo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ka u dhaxeeya madaxda dawlad goboleedyada dalka iyo dawladda federaalka Soomaaliya haddaba qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Joore ayaa mikrofoonka TV-ga Hirshabeelle la dhax qaaday waxaana wax aan ka weydiiyay dareenkooda ku aadan shirka la filayo inuu ka dhaco magaalada Muqdisho u dhaxeeya dawladda federaalka iyo tan dawlad goboleedyada dalka shirka ka furmaya magaalada Muqdisho ee u dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka waan soo dhaweynayaa sababtoo ah waxaan u baahanahay in la wada hadlo waxaan u baahanahay in la isqanciyo Soomaaliya dagaal iyo isku dhac iyo kala qoqob way ka soo daashay 30 sano ee la soo dhaafay waxaan leeyahay cashir hanagu filnaato Soomaalidan maanta waxay u baahan tahay dawladnimo waxay u baahan tahay deganaan waxay u baahan tahay horumar arintaasna waxa lagu xaqiijin karaa in la wada hadlo waan soo dhaweynaynaa wixii horumar ah oo ka bilaabmaya gobolka ka socda ama gobolka Soomaaliya sida maxaan ku leeyahay Geeska Afrika gobolka Geeska Afrika ka soconayo oo maxaan ku leeyahay horumar aad aan soo dhaweynaynaa khaasatan dalka bariyahan waxa ka socday xoogaa iska horimaadii isdiid iyo maxaan ku leeyahay dad kala aragti duwan in wax ay ka soo baxaan oo la soo dhawaasho aad aan soo dhaweynaynaa waayo dalkayna intuu burbur gal laha xasiloonida aad u danaynaynaa dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada shirkooda waxaan rajaynaynaa inuu wax shir fiican oo ummadda mas'uul muxuu ahay u dan ah inay ka soo bixi doonto maamul goboleedyada waxay mas'uul ka yihiin deegaan walba dadkooda ku nool dawladda federaalkana waxay mas'uul ka tahay dhammaan maamul goboleedyada marka shirkaas waxaan rajaynaynaa inay wax fiican ka soo bixi doonaan horta shirkaas waxa waa shir muhiim ah Soomaalidu inay dhagaa wada taagayso yar iyo weyn dumar iyo oday iyo ciroole iyo dhalinyaro intaba waa shirka kaliya ee la rajaynayo in mustaqbalka Soomaalida oo u noqoyo shirka kaliya ee horumar u horseedi karo ama shirka kaliya ee xumaati amba dagaal iyo qajac u horseedi karo marka shirkaas Soomaaliyaanta aan fikraanteedu waxa qabaa in shirkaas uu noqoyo shirka kaliya ee Soomaaliya idil wadada toosan loogu hormariyo Yusuf Maxamed Ahmed Hirshabeelle TV Jowhar